horta anigu gabadha uma jawaabin umana jawaabi doono meelaan ugu jawaabay ama aan u gafanay in la keenaa rabaa warkiidina maanta uu iga gudbay aniga in la qariyo maaha maanta qabiil buu og yaalaa shabaab maxaa keenay inaan ku biiro ma hortaalo waxaa loo baahan yahay al-shabaab iyo aniga dowladda federaalkan waxba igama quseeyaan oday muslima oo inuu diinta ilaahay ilaaliyo rabaan ahay horta anigu gabadha uma jawaabin umana jawaabi doono meelaan ugu jawaabay ama aan u gafanay in la keenaa rabaa warkiidina maanta uu iga gudbay aniga in la qariyo maaha maanta faamilka Sheekh Shantaay tiisa iyo reerkayga iyo dadka aniga ugu xiranne waxaan u balan qaaday inaan cidna u jawaabin anigu waa leegafay gafkaygi wali la iskaga harin marka hadaayana waan ku sheegay Soomaalidu diinta 70% ma rabaan 30 diinta rabta oo diinta inay ilaashata rabta ayaa anigu meel la maraya anigu ana leegafay wili maanan arag nin inta baraha bulshada fadhiista dhahayo wadaadku waa laga gardaniyo maanan arag wadaad waa in la heli karaa markay leeyihiin Soomaalidu wadaad baaga muuda oo wax amala iyo wax qorshe aan lahayn ee xilligii xaafadda uu degan yahay loo baahdo soo bood liiraada duceeyahay ee Soomaalidu rabaan wadaad qorshe leh oo dadka jeebkooda inuu ka maarmo xaqana inuu cadeeyo rabo Soomaalidu ma jecla marka labaad waxay ku kelimadooda kamida waa in la haysa karaayeen wadaadan umada ka hor imaanaynin ee qaladkooda dadka ku wadi kara ay Soomaalidu rabaan waxay kaloo dhahan waa in la habi kara wadaad xaraamta aad ku jirto indhaha ka laabanaya ee maalinka wax ku soo doonta dhabarka ka dharbaaxay ay tumankiisa maleen aad bac ugu ridaysay rabaan marka ma suurta galayso waxaan kaga duwanahay dawladda dhexe Soomaaliya culumadii xilliga joogtay shiiqiga iga shakay saddex ay u qaybsantay qolo way gaabsadeen qolana xabsiga ku jireen kuwii shahiiday ilaahay ummadan diintoodii aqeedadoodu ku badbaadiyay kuwa ka aqoon badana banaanka jooga maysan hadlin yuusi iyo walakuma waxa si cad loo inkiray dawladda dhexe oo ahayd heykal dawladnimo leh dawlad isku tashan amnigeeda iyada tashatay khayraadkeeda ku tashan bay dawladnimada maanta sir iyo been ka kooban iyo dawarsiga iyo tugsiga ma ahayn maanta amniga magaalada Muqdisho ajnabi ayaa gacanta ku haya takada ajnabi ya maamula airportka ajnabi ya maamula guriga la leeyahay filla Hargeysa ama filla Soomaaliyana ajaniba maamusha laakiin xilligii dawladda dhexe way ka duunay guud ahaan Soomaaliya ciidan ayaa gacanta ku hayay ciidan kaas oo ah ciidan amniga dalka guda kara laakiin dhibaatada dhacda waxay tahay wixii ugu weynaay oo dad muslima laga rabaa la waayay ayri Allahu rabbul alamin in lagu adab daroodo wax qataro waay yuusi walakuma la inkiray wadaadadii marka Allahu rabbul alamin ridihiisa iyo warka alla oo la weyneed maamulkii ninkii ugu sareeyay waxay xukumkii oo lahayd bay u cadeeyeen koo waxay dhaheen islaamka waa ka baxday islaamnimada ku soo noqo ilaahayna waxaad toobana la imo waxa la yiri waan haynaa ka laabta la yiri go'aankiina way diideen waa la bilbilay laba miig baa loo kiciyay dabaaldagoodii way isku dhaceen waa biriga hadda aan joogno aniga adigu iyo RTV 80 qof baa ku dhimatay taqriiban ka badan Soomaalidu marka culimadu way ku caliyoodaan way caayaan ma xurmeeyaan xaqana uma jeedaan marka anigu muslimna waan ahay mabda ayaan aaminsanahay Muqdisho maanta awooday isdiidan cabsi madax jibin sumeyn guriga in laga la baxo oo hay'ada ka awood badan ay ku soo weeraraan inta way ka jirtaa laakiin ima qusayso horta dadka saxaafadda qayb kamida iyo youtuberleyda
علوم بدن بالغو يدرد وحكم إذا ولالك شيخ كينياوي أنا ومكت وحي وإتوسي إتابسي راب بالله ساري مرخاتي هذا يجاه راب هيز راب أيا الله ساري دتك ساري ودت السوشيال ميديا كجرا dad u jawaabay inta social media soo fadhiisto culumadu nagama qabato in lagu caliyoodo qof dhahay anigu ma arag dad badan baa maanta lugaha i haysto nin inta social media soo fadhiistay warwadaadka gar looma sibnay waa laga gar daran yahay ha laga leexdo wadaad dhahay anigu ma arag bal waxa laga yaabaa inaad maalmaha soo socdo 5 wadaad iyo 6 wadaad oo sheekh shantay ku dhigan inaad arki doonto hadii ilaahay cimri nasiib maxaa yeelay wadaadada qaar waxa ku dhacay wax la yiraahdo xaasidnimo ayaa ku dhacday culumadu markii dadka la rabo in la durane alxasad lil ulama ayaa la yiraahdaa waxa la xoogaa lagu tilmaamaa cadownimada inay ayaga u dhowdahay wadaad maanta wadaad wax u ogol ay maanta ragnimadiisa iyo qaabka wax u gudbaaya ku qanacsan wuu jira adaniga Soomaaliya ragga ugu waaweyn Sheekh Maxamed Cabdi Umar uu xiriiriya maaha aniga inaan xiriiriya asay xiriiriya uu ii duceeyaa talo isiya uu xiriiriya waana ku faraxsanahay anu hadda garan maayo Sheekh Maxamed nin ka muhiimsan Soomaaliya inuu ku jiro aqoontiisa ummadda uu ku anfacay waqtigiisa ummadda uu geliyay talana ummadda uu ku anfacay meel kasto musiibo ka dhacdo uu taagan yahay wuxuu igu la taliyaa jidka aan hay inuu jid wanaagsan yahay wuxuu igu la taliyaa geegsi iyo dulqaad inaan la imaado inaan sabro xaqu inuu cadow leeyahay maantana xilliga lagu jiro wanaagu inuu yar yahay wanaag wax rabana inay yar yihiin marka inaan geegsi iyo dulqaad la imaado oo maaragtay dadka xunxun aan u jawaabin oo markii ay soo caayaan aan iraahdo ninkay caay hayaan anigu mihi ayuu la dardaarmaa iyo dadka aniga jecel iyo reerkaygaba go'aanka oo Sheekh Shantay meel dadka ku xiran iyo dadka Allahu Rabbul Alamin degan jecel Allahu Rabbul Alamin jecel oo dunida meel walba ay joogaan ila soo xiriiray wiigan gudihiisa hadda gabagabada waxaan u balan qaaday cid kasto oo nagu caliyooto Sheekh Shantay soo weerarto inaan u jawaabi doonin taasna aniga balan qaaday maxaa yeelay maanta anigu magacayga wax buu gooyaa cid laga qaraayo ma leh habartii fuyuus u baahan maanta waa inay Sheekh Shantay soo qaadataa odaygii fuyuus u baahan waa inuu aniga magacayga soo qaataa marka waxa weeyaan Allahu Rabbul Alamin magacii meel fogeeyay qofku wuxuu wax ku noqdana waa diin إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين حديث عمر أوريني إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما إلهي كتاب كان ضدبو كعزية أو كربو إلهي وقادا قوم نوكدو ليا هوسبو لقا قوم إلهي كعزية وقوة برته أي راعة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه براء كتاب كالله markaad barato oo aad ogaato xaq iyo baadilna raac dadka maanta idab darada wada waxaan leeyahay oo aan ilaahay ugu baryayaa horta inuu ilaahay hanuuniyo idab darada ay xaq ku idab daroohayaan ay joojiyaan war anigu xafiiska aniga gaarka aan wax ka soo duubo ama fadhiga gurigeyga ku yaal aan wax ka soo duubo anigu waxaan ku dhahayaa waa alla yiri النبي محمد صلى الله عليه وسلم يري والمسلم عافمات قبا هداتها مات قادتي maxaa ku daba dhig intaad ka soo duubtaa iyo gurigiisu ka soo duubaayo fariinti Allahu Rabbul Alamin baa lagu sheegayaa war hadaad muslim buuxa aad tahay ay aadan idab daro aan wadin xaqana aadan ku idab daroonaynin maad qaadatid gabar nin ajnabiya ay doonayso rabto inay Turkiga iyo Kismaayo iyo Nairobi iyo Muqdisho iyo Jigjigo inay safar la gasho aan horta aan u maaqan gabar nin ajnabi ka iyadoo shaashadu hayso shaashadaasna ay rabto inay tabiso ee xataa la tabinayo luqmad afka u gelinayso aan horta aan u maaqan nin xaaskiisi amaama al-malak ku dhunkoonayna aan u maaqan anugu aan waxaan u aqaanaa ruuxa Allahu Rabbul Alamin taladiisa ilaaliya
dadka aniga isoo caayane waxay sahleen dadaan mabaadiida ku kala dubnaynay maanta aniga inay garab ii noqdaan waxaan rabaa inaan kaa faa'iidaysto dad mabaadiida aan mabaadiyo ku kala tagnay ay aan 5 sano iyo 10 sano aan kala maqnaynay maanta aniga inay rabaan inay dhiigooda ii huraan horta taa way sahleen khayr allah siiyo marka caydayda soo wada hanjabaadayda soo wada qodobka labaad waxaan kaloo ku tashanahay dad waxa aan dhahay ay la weeyihiin waxba ma qarinayo waxaan anigu sheegayo dad ay kala qiimo badan tahay naftooda iyo xoolahooda na waa diyaar muqdisho joogan qabiilna isku manihin qaarkood xataa ma aqaano waxa loo baahan yahay qofku markuu leeyahay saxaafiyaan ahay wuxuu gudbay inuu iska fiiriyo tooxow horta ma anaa soo doontay masaasay soo doontay ilaahay wuxuu amray cadaalad uu amray nabiga sallallahu alayhi wasallam uu amray tooxow aniga wuxuu iga sameeyay warbixin wuxuu cadeeyay in layga soo cadeeyay dhowr masjid maanta hadii loo diro tooxow ma keeni karo tooxow wuxuu cadeeyay anigu inaan ahay faalalow shariicaduna cirdiga ilaalisaa meeshu aniga aan saaxiib ku ahay hadii la weydiiyo ma keeni karo Soomaaliduna way istaqaanaa xalana soo hadlayaan maqlay waxaan rabaa inaan maanta ka faa'iideysto mar kale anigu dadka igu xiran iyo dadka Allahu Rabbul Alamin jacayl baan ka balan qaaday inaan cidna u jawaabin laakiin waxaan rabaa tooxow dadkiisu inay qabsadaan tooxow u sahlanaamayso inuu yiraahdo shantaayo telefonaadkaaga waan dhageystaa anuu tooxow meelo ku noqday hay'ad amni maanan arag hurmudna ma hano systemka asagu ma laha gacantana kuma hayo anugu hurmud baan isticmaalaa hurmudna anugu waan garanayaa waa company shacab umada u dhaxeeya xoolahooda Allah u barakeeyo xoolahooda lamarka aabahayaan maanta hadaan jiriyeen hurmud iyo ogolaanay amni iyo amaanada inay ilaaliso meeshay ka gaartay anigoo maanta sheekh shantaaya aabahay maxamuud lambarkiisa aan rabaa hadaan iraahdo isiin maayaan tooxow marka horta wuxuu ku hadlayo wax dheelitiran horta umada ugu sheego mid labaad gafka aniga asaga cid ku horeysana saacadeey marqaati asaga ay ah wuxuu yiri hadaad xanaaqday islaamnimada ma iga saaraysaa asiga oo marqaatiya xalay mar labaad buu sii gafay marka maanta qabiilkii xataa qiimihiisa hoos u dhacay aniga maanta hadaan iyadii golaalanahay aan isku qabiilnahay waxaan rabaa inaad damiirkiina kiciinta damiirka leh hadaan qabiilku ugu difaaci karo aan awood aan leeyahay waa inaan dulmiga ka reebi karaa kelimadaas ka fiiriyo Soomaaliyeed hadaan qabiilku ugu difaaci karo oo aan dhiigayga ku hori karo inta albaabkan ka furo aan ku dhihi karo gal marka aniga dhintaa dhimay waa inaan dulmiga ka reebi karo tooxow marka dadkiisu gacanta ha qabtaano Soomaaliya wadaad joogo in lagu gardaroodo ma sahlana waan ku celinaya hala qabto tooxow Hargeysa iyo Muqdisho way kala duwan yihiin Hargeysa 5 jufo istaqaana degan waxa baqaris meesha ma taray mugta 5 jufo oo heshiisay oo 5 sano soo socota hebel hala saaro ayaa Hargeysa joogto Muqdisho waxa joogto dawladda federaalka si walbaani iyo kaan xiriir lahayn laakiin maanta waxaan aaminsanahay in la bislaaday qabiil laga tagay dadka saraakiisha ay wax hogaamiye inay bisil yihiin social media afxumada iyo been abuurka iyo propagandada taale ay og yihiin dad wax baari karo qofku wuxuu yahay iyo afkaartiisa inay wax dhibayso inay wax dhibaynin keeni kara inay yihiin anigu marka cabsi xagga dawladda teeda ima hayso Muqdisho waxaan ugu tagayana ma jiraan waa laga yaabaa anigu inaan dhinto laakiin afkaarta aan xambaarsanahay ayaa waxay tahay mid aan ka tanaazulayno dawladda xaggeedan waxaan aaminsanahay wax dhibo inuu naga iimaanay waxa loo baahan yahay al-shabaab iyo aniga wax xiriir ma lihin anigu nin daaciya oo talada Allahu Rabbul Alamin aan cidna u ag fadhin baan ahay diinta islaamkana cid ka xigta ma leh
diinta islaamka anigu waxaan rabaa inaan daryeelo balliquu cannii walow aayatan waxadiثuu can bani israa'iila walaa xaraj waman kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar dardaarankaa nebi maxamed sal alay slamkiisaan rabaa inaan marka wixii aan awoodo inaan meel geeyo aayadba ha ahaatee dadka ha layga gaarsiiyo ruuxii aniga igu been abuurtee waxaan dhihinna ii dhaho naarta booskuu ka tegayo waa u diyaar xadiiska inaan iska hubiyo sixadiisa hadduu ii hubnaadana aan ummadda u gudbiyo hadduu daciif yahana aan ka tago isticmaalkiisa nebiga sal alay salamna aan si buuxda ugu daydo ruuxa gacanku dhiiglaha iyo ruuxa jeebku dhiiglaha iyo ruuxa uurku dhiiglaha allahu rabb alcaalamiin wuu ogyahay jeebku dhiigle gacanku dhiigle uurku dhiigle afku dhiigle midka dadka sahminaya ee dhahaya meeshaasoo soo maray ee sahanka qaabilsan iyo midka lacagta bixinaya iyo midka wax dilaya allahu rabb alcaalamiin inta uu ogsoon yahay marka in lagula socdo ogow caqiidadaada iyo diintaada ilaasho iyo xumaan lagu isticmaalin ummadda nabadgeli waad nabadgelaysaa diintaadana ilaasho qof kastana waxaan kula talinayaa asagoo sharfan inuu dhinto